ku soo dhawaada mar kale. Maanta qisadeena ama sheekadeena waxaan ku soo qaadan doonaa dhacdooyinka caalamka ugu yaabka badan. Qof waliba taariikhda mar bay qortaa. Nin walibana wax baa lagu xasuustaa. Qaar baa lagu xasuustaa aqoon, qaar baa lagu xasuustaa inay dhiig daadiyaan, qaar baa lagu xasuustaa deeqsinimo, qaar baa lagu xasuustaa furfurnaansho iyo qosol. Hase yeeshee, maanta waxay sheekadeena noqon doontaa qof lagu xasuusto baqiilnimo tii ugu darneed ee adduunka lambar 1 ka gashay xilligaasi ilaa waqtigaana qof lamid la waayay. Gabadhan aan rabno inaan ka sheekeyno magaceedu waxaa la yiraahdaa Heathen Green. Waa gabar lacagteeda gaartay 2.3 trilyan. Haddana iskama aysan bedelin nigiskeeda hoose laga soo bilaabo marka ay jirtay 16 sano ilaa maalintii ayba oofsaday. Waa sheeko cajiib ah. Waxaa kaloo oo ay sababtay in laga jaro lugta wiilkeeda curudka ah siday ugu raadinaysay cilaaj bilaash ah ama caafimaad lacag la'aan ah. Waa Heathen Green. Waa gabarta ugu baqiilsan ama ugu baqiilsaneyd adduunka. Waxay dhalatay sanadka markuu ahaa 1835. Waxayna ku dhalatay Mareykanka. Waxayna ahayd gabadha kaliya uu dhalay xilligaasi nin taajir ah. Waxay furatay akoon banki ayadoo 6 jir ah. Markii uu galay damac lacag ururis, waxayna bilowday in ay si maalinle ah u akhrisato joornaalada soo baxa kuwaasoo ka sheekeynayaan arrimaha dhaqaalaha. Waxay aabbaheeda ka dhaxashay hanti ku dhow 7.5 milyan iyadoo 21 jir ah. Waxayna u wareegtay magaalada New York ee caasimadda Mareykanka. Waxayna lacagteeda ku maalgashatay shirkadaha qamaarka. Waxayna guursatay nin sideeda oo kale ah, yacni milyuneer ah. Waxay ku nooleed oo cuni jirtay haraaga buskudka ama buskudaha iyo keegaga dukaamanka iska soo tuuraan. Waxayna maalintii oo dhan muran u geli jirtay si ay bisadeeda ugu hesho cunto bilaash ah. Weligeedna cunto ka badan 2 senti ma aysan cunin in loo qaado ama loo gado mooye. Islaantaasi waxay xiran jirtay hal cabaayad oo madow. Nolosheeda oo dhan ma bedeli jirin ilaa ay ka dhammaato cabaayadaasi. Haddii uu dhammaado cabaayadii ay xiran tahay, waxa ay raadsan jirtay mid kale oo bilaash ah. Heathen Green waxay dhimatay sanadka markuu ahaa 1916 iyadoo xilligaasi jirtay 81 sano. Waxayna u dhimatay wadne istaag ka dhashay muran dhex maray ayada iyo jaariyadda gurigeeda ka shaqaysa, taasoo oo ka dalbatay in mushaarka loo kordhiyo. Waa sheeko cajiib ah oo marnaba aan kaalinteeda laga galaynin. Intaan ku kulmi doonno barnaamij kale oo ka qurux badan, waxaan inkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Hana ilaabin inaad nagu soo biirto. Mahadsanid.